Dibadbaxyo looga soo horjeedo falkii Israa'iil ay ka geystay isbitaal ku yaala Gaza ayaa waxaa ka dhacay dalalka Islaamka. Dadka dibadbaxyada ayaa waxay taageero xooggan u muujinayaan shacabka Falastiiniyiinta oo xasuuq ba'an u geystay dowladda Israa'iil, waxaana inta badan dalalka caalamka Islaamka xalay ay ahaayeen kuwo si aad ah loogu mudaharaaday oo looga hor imaaday dhibaatada Israa'iil ay u geysatay shacab ku sugnaa isbitaal ku yaala Gaza. Dunidu waxay ka falcelinaysaa iyadoo saraakiisha Gaza ay sheegeen in 500 oo qof ay ku dhinteen weerar Israa'iil ay ku qaaday isbitaal ku yaala Gaza. Ugu yaraan 500 oo qof ayaa lagu dilay weerar cirka oo Israa'iil ku qaaday isbitaalka Al Ahli Arab Hospital ee Gaza, sida ay sheegeen maamulka Falastiiniyiinta ee dhulka la go'doomiyay. Dhowr hogaamiye oo adduunka ayaa cambaareeyay weerarkaasi. Falastina afeen u hadlay madaxweynaha Falastina Maxamuud Cabbaas ayaa weerarka cirka ku tilmaamay fal xasuuq iyo masiibo bini'aadanimo. Cabbaas ayaa sidoo kale ka baxay kulan hore loo qorsheeyay oo uu la lahaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaasi oo lagu wado in Arbacada maanta gaaro Israa'iil. Jordan bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Jordan ayaa si adag loogu cambaareeyay weerarka Israa'iil, waxayna carabka ay ku adkaysay baahida loo qabo ilaalinta caalamiga ee rayidka Falastiiniyiinta iyo joojinta dagaalka. Boqor Cabdallah labaad ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil ay ka geysatay isbitaalka Gaza uu ahaa xasuuq iyo dembi dagaal oo aan qofna ka aamusi karin. Dowladda Masar waxay soo saartay bayaan ay ku cambaareynayso weerarka sidii ugu xumeyd, iyagoo ugu baaqay beesha caalamka in ay soo farageliyaan arrintan oo ay ka hortagaan xadgudubyada loo geysanayo shacabka Falastiiniyiinta. Dhanka Qatar, wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa sheegtay in weerarka uu calaamad u yahay xasuuqa loo geysanayo shacabka Falastiiniyiinta. Ballaarinta weerarada Israa'iil ee marinka Gaza ay ku hayaan isbitaallo, iskuulo iyo xarumo kale ee dadweynaha waa khasaaraha ugu badan oo Israa'iil ay u geysanayso shacabka Falastiiniyiinta. Dowladdu waxay si adag u cambaareysay weerarka lagu qaaday isbitaalka Al Ahli Arab. Agaasimaha guud ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee Qaramada Midoobay Tedros ayaa soo dhigay bartiisa X, isagoo intaasi ku daray in warbixinadii hore ay muujinayaan boqolaal dhimasho iyo dhaawacyo. Waxaana uu ku baaqay in si degdeg ah loo ilaaliyo rayidka iyo daryeelka caafimaadka iyo in amarada daadgureynta la beddelo. Jaamacadda Carabta Madaxa Jaamacadda Carabta Axmed Abulqeyd ayaa sheegay in hogaamiyaasha caalamku ay tahay in ay si degdeg ah u joojiyaan masiibadan iyaga oo ka jawaabaya weerarka. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku cambaareeyay weerarka. Duqeynta loo geystay isbitaalka Gaza waxay tahay arrimo dembiyo dagaal oo Israa'iil lagula xisaabtami doono. Waxaan ku martiqaadaynaa dhammaan bini'aadamka in ay qaadaan tallaabo lagu joojin karo naxariis darrada aan hore loo arag ay ku kacayaan Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa cambaareeyay weerarka, waxaana uu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo shuruucda dagaalka. War ka soo baxay Gaza waa mid naxdin leh oo aan sina loo aqbali karin. Sharciga caalamiga waxa uu u baahan yahay in lagu ixtiraamo qof walba iyo dhammaan kiisaska. Waxaa jira shuruuc ku saabsan dagaalada, mana la aqbali karo in isbitaal lagu dhufto gantaal ayna la sheegto. Wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa weerarka cirka ku tilmaantay weerar lagu qaaday dad aan hubeysnayn oo aan difaac lahayn. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in Israa'iil weerar bahalnimo ay ka geysteen isbitaal ku yaala Gaza.